بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo gudbinayaa clip kooban oo aan u dirayo waxa weeye maxaa ku dhahday runtii dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo waxa weeye maxaa ku dhahday kelmadan ka oranayo maxaa ku dhahday mucaaradada waxa weeye maxaa ku dhahday Sheikh Al-Allama Sheikh Maxamed Cabdi Umal Khadiijo Caalamiin Shiina soo dhawaada dhamaantiinba sina shargaraya barnaamijka walaalayaal waxaynu arkaynay waxa weeye ayaamaha kan waxa weeye ilaa shalayto runtii caro iyo cunuf ka soo yeedhaysay urur diimeedka suufiyada ah la magac baxay ahlus sunna waxa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Khadija aad baan ku soo dhawaanaya walaalo arrintaas walaalayaal oo ay ku hanjabeen walaaluhu in aan waxa weeye sheekha magaalada laga saaro in aanu ka muxaadarayn karin magaalada waxa weeye maxaa ku dhahday Muqdisho waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan u hambaliyeynayaa dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo culimada dalada culimada waxa weeye maxaa ku dhahday Soomaaliyeed ay hogaaminayaan waxa weeye dawladda oo hogaaminaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waxa weeye maxaa ku oo runtii mowqif shariifa istaagay gudina u saaray in ay waxa weeye maxaa ku dhahday qabanqaabiyo gudi sare oo wasiir ah u saaray inay qabanqaabiyaan muxaadarada sheekha si qurux badan si ay ugu qabsoonto waxaan kale oo aan magaranaysaa maxaa ku dhahday u mahad celinayaa culimadeennii waaweyneyd waxa weeye maxaa ku dhahday sheekh Bashiir Salaad iyo waxa weeye sheekh waxa weeye Cali Wajiis oo iyana cadeeyay mowqifkooda waxaan leenahay jasaakumullahu khayr ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydin wada barakeeyo dhamaantiinba waxaan leenahay xaqiiqatan walaalaha waxa weeye maxaa ku dhahday ahlus sunna wa jamaa dhamaantiinba waxaan nahay ahlus sunna wa jamaa dadka Soomaaliyeed oo dhan baa ahlus sunna wa jamaa kaligiin maaha walaalayaal haddii walaalayaal marka la isku qabsado masaa'il sharci ah sida waxa weeye maxaa ku dhahday ilaahayba uu inoo sheegay waxa weeye maxaa ku dhahday waxa ay tahay in loo celiyo kitaabka iyo sunnada in la isla fadhiisto oo laga doodo oo waxa weeye maxaa ku dhahday magaranaysaa maxaa ku dhahday la isla eego khilaafaadka iyo magaranaysaa maxaa ku dhahday waxa la isku diidan yahay laakiin walaalayaal in maxaa ku dhahday dadka masaakiinta waxa weeye Soomaaliyeed waxa weeye maxaa ku dhahday caamada ah in la isla dul jiido in waxa weeye cunuf la geliyo iyo colaad in waxa weeye maxaa ku dhahday mashaakil hor leh dadkii maxaa ku dhahday Soomaaliyeed aynu arkaynay siyaasiyiintu qaab sida ay ula dhaqmayeen daalanaa 30 sano in haddana la dhibaateeyo oo dhibaato hor leh loo horseedo arrintaasi arrin waxa weeye maxaa ku dhahday ka iman karta dad culimo ah oo waliba waxa weeye maxaa ku dhahday culimo waaweyn sheeganaya ma aha walaalayaal waxaan la raalli ahaada waxay suga waxa weeye clipku waa clip kooban inaan soo qaban karana kamaradu way xidhan tahay walaalayaal kamaraduhu bariyahan Facebook way ka xidhan yihiin la isma soo qaban karo sida hadda ayaantan jirta marka wax yar isuga waxaan rabaa in aan clip yar maadaama cilad farsamo jirto xagga Facebook ah oo dadka oo dhan haysata marka maxaa ku dhahday waa dul qaadanaysaan walaalayaal haddii qofkii doonaya hadhow marka aan furo wax ayuu messengerka iga soo wici karaa hadda maaha laakiin hadda ma anaa sheegaya marka aan magaranaysaa dadka aan u ogolaado walaalayaal waxaan leenahay Sheikh Maxamed Cabdi Umal waxa weeye maxaa ku dhahday waa ka deeqtoon yahay taariif waa sheekh عمار تعالمه ومدى Soomaaliyeed ay wada taqaano cilmigiisa waxa weeye wax badan ka bedelay geyiga Soomaaliyeed wax badanna ka bedelay waxa weeye maxaa ku dhaaf fahamkii diiniga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed xaqiiqatan waxaan leeyahay jasaakumullahu khayr ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka u saaro sheekha waxa weeye wuxuu bayaamiyay wax badan oo waxa weeye maxaa ku dhaaf mugdiinaga jiray oo uu ka mid yahay mawluudku waxa weeye qubuuraha oo maxaa ku dhahday iyo awliyada waxa la yiraahdo la caabudo la baryo
waxa weeye waxaa ka mid ahaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu maxaa ku dhahday si fiican uu u dhigdhigay mawaaqif waxa weeye kala duwanna uu soo magaranaysa maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku walaal weli ma furna kamaradu waxa weeye maxaa ku dhahda diblomacy weli ma furna walaalo kamaraduhu beryaha kan ma shaqaynayaan waxa weeye maxaa ku dhahda facebook waa arrin waxa weeye maxaa ku dhaha caama maaha aniga keligay maaha laakiin waa dadka oo dhan marka saa ula socda asxaabta qiimaha badan leh waa cillad xaggooda ka jirta maaha xaggeena marka walaalayaal waxaynu rabnaa inaan caddayno oo aynu dowladdana fariin halkan uga dirno walaalahaasna aynu fariin u dirno haddii ay qaadanayaan waxaan walaalahaas ku leenahay walaalayaal waxa weeye maxaa ku dhahda xaqiiqatan waxa weeye maxaa ku dhahda waxa aanu idinka maqlaynay mudaharaadkii maanta laga bilaabo waxa weeye walaalkii soomow sheekh soomow waxa weeye fariintii adkayduu soo dirayey intuba caqliga iyo maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahda diinta islaamka waxa weeye maxaa ku dhahday meel kuma laha haddii uu dacwo qabo walaalku waxay ahayd inuu madaxda u yimaado oo waxa weeye maxaa ku dhahday isagoon qaylin inuu culimadii ay magaranaysa maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday isku magaranaysa ciidanka ahaayeen ee uu afhayeenka u ahaa waxa weeye inuu u yimaado sidii xalayba uu maxaa ku dhahday sheekh cali wajiis uu sheegay inay culimada u yimaadaan oo la khidaabaan oo wixii magaranaysa maxaa ku dhahday mugdiga kaga jira iyo magaranaysa ay u bandhigaan aragtidooda oo ay markaa iyagu wax meel isla dhigaan ka culimo ahaan intaan shacabka loo soo bandhigin xalay waxa weeye maxaa ku dhahday kabacdi markii ay culimada hadleen dowladduna mowqif ay qaadatay waxaan arkaynay maanta mudaharaad waxa weeye magaranaysa maxaa ku dhahda ay isugu soo baxeen duruqu suufiya oo ay ku mudaharaadeen waxa weeye maxaa ku dhahday garoonka waxa weeye maxaa ku dhahday injineer yarisow raximahullah ilaahay subxaana watacaala walaalkeen naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalayaal sidaa darteed waxa weeye maxaa ku dhahday runtii labaduba laba arrin oo qaldan wadi waxa weeye waxaan fariimaha maantana soo baxay waxaan fariimo ka adag kuwii shalay aynu maqlaynay oo hadda loogu hanjabayo dowladda in la ridi doono haddii aanay waxa weeye joojin waxa weeye maxaa ku dhahday muxaadarada uu shiikhu dhigayo shiikhana laga saarin magaalada billah calaykum fiiriya u fiirsadaya waxay ku leeyihin dowladda waan ridaynaa haddii ay waxa weeye maxaa ku dhahday shiikha waxa weeye muxaadarada ay joojin waayo su-aasha meesha taalla dowladda mayagaa dhisay su-aasha meesha taalla walaaluhu dowladda mayagaa dhisay mise dowladda iyagaa loo dhisay waa oo keligood bay u dhisan tahay dowladdu miyaanay dowladdu aanay ummadda soomaaliyeed ka dhaxayn miyaanay culimada waaweyn ee waxa weeye maxaa ku dhaha rabbaaniyiinta ah sheekh umar miyaanu dowladda wax ku lahayn miyaanay culimada sheekh bashiir salaad iyo sheekh cali wajiis iyo maxaa ku dhaha culimada kale ee ka soo horjeeda miyaanay dowladda wax ku lahayn shacabka soomaaliyeed ee jecel sheekh umar iyo sheekh bashiir iyo sheekh cali wajiis miyaanay dowladda wax ku lahayn waa wax la yaab leh walaalayaal hadda u fiirsada billah calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu dowladdu ma dowlad ay duruqu suufiya keliya leeyihiin ba markay leeyihiin dowladda waan ridaynaa haddii ay annagana maqli weydo markay leeyihiin ma iyaga ayaa leh ma iyaga ayaa dhisay ma keligood baa loo dhisay waa su-aal da'weyna madaxa daalinaysa subxaana allah subxaana allah waxaan leenahay ilaahay subxana watacaala caqliga ha idiin soo celiyo ilaahay caqliga ha idiin soo celiyo baan idin leenahay waxa weeye maxaa ku dhaha waad khaldan tihiin boqolkiiba boqol baad khaldan tihiin markii horena waad khaldanaydeen oo waxa weeye maxaa ku dhahday waxa culimmadu ay sheegayaan waa sax weeye oo diintii ilaahay waad ka been sheegteen culimooy waxa weeye maxaa ku dhaha mawlid aan jirin baad noo keenteen oo aan maxaa ku dhaha rasuulkiina noo dardaarmin asxaabtiisiina noo dardaarmin taabiciyiintiina maxaa ku dhahday taabiciyiintiina noo dardaarmin ayaad noo keenteen oo diin nooga dhigteen bal hadda u fiirsada waxa weeye waxaad tidhaahdeen awliye duugan oo waxa weeye maxaa ku dhahday dhintay ha la baryo nebi maxamed ayaan u munaasib ahayn in la baryo sala allahu calayhi wasalam baa ka deeqtoon oo ka digay in qabuuraha la baryo in isaga gooni loo baryo markuu noolaa iyo markuu dhintay toona bal hadda fiirsada walaalayaal waxaan leenahay waad qaldan tihiin walaalayaal waad qaldan tihiin ilaahay subxaana watacaala ha idin hadeeyo ummaddanna afduub kuma jiri karto waxay ka soo baxday afduub qabqable bay ka soo baxday hadda ayaa ilaahay subxaana watacaala aan ka baryaynay inay ka baxdo afduub waxa weeye maxaa ku dhaha argagixiso inay ka baxdo
oo ay ummaddu ay xorriyad iyo magaranaysa maxaa kula ay dhadhamiyaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala iyaga iyo culimadooda iyo dowladdooduna ay isku xidhmaan hadda ayaa doonaysaan inaad afduubtaan culimada mar kale ayaa doonaysaan inaad afduubtaan culimada waa wax la yaab leh arrintaasi waa wax la yaab leh oo runtii laga yaabo waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ma qaadanayaan waxa idinka soo yeedhaya waxay qaadanayaan shacabka soomaaliyeed maaha waxay aqbali karaan maaha wax cilmi ku dhisan maaha wax caqli ku dhisan maaha waxa weeye runtii waa qariska tuur waa qariska tuurnimo waxa weeye maxaa ku dhahdaa jahli waxa weeye xambaarsan weeye waxaan leenahay waxa weeye dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan leenahay jazaakum allahu khayr mawaaqifta aad qaadateen dalka idinkaa xukuma dadka soomaaliyeedna waxa weeye maxaa kula idinkaa hogaamiya waxaan leenahay sidii muxaadarada shiikhu wayna ku dhacdaa waqtigeedii sidii aad ugu talagasheenna wayna u dhacdaa insha allah bismillahi kariim waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladdu in ay waxa weeye maxaa kula walaaluhu hadday dacwo qabaan ay culimada u furto dood cilmiyeed inay u furto dood cilmiyeed ay ku wada doodaan oo masaa-isha laysku khilaafsan yahay ee waxa weeye maxaa kula diiniga in laga wada doodo waa inay dowladdu ay u furtaa waxa weeye maxaa kula majaal iyo maxaa kula marxalad ay ku wada hadli karaan oo qolo waliba burhaanteeda iyo aqoonteeda ay ku soo bandhigayso dowladda fariintaasaan leenahay waxaana leenahay waxa weeye jazaakum allahu khayr waa inuu caqligu shaqeeyaa waa inuu cilmigu shaqeeya dalka soomaaliyeed waxaan ka doonaynaa in cilmiga iyo caqliga laysu geeyo culimadu waxay hayaan cilmigii waxa weeye cilmigu wuxuu ku dhan yahay kitaabka iyo sunnada ayuu ku dhan yahay culimadaasana waxa weeye waa maxaa ku dhahday magaranaysaa wakiilka ah iyaga ayaa dhaxalkii ambiyada nebi maxamed iyagaa dhaxlay sala allahu calayhi wasalam iyagaa booskii ambiyada noo jooga waxaan leenahay markaa waxa weeye maxaa ku waxaan u baahannahay in aanan ku noqon godadkii xanuunka badnaa ee jahliga iyo mugdiyaalka ahaa ee aanu ku soo baaba'nay waxaan rabnaa culimadayada waxaan rabnaa waxa weye maxaa kula dowladda madaxdayada sare waxaan rabnaa gacmaha inay isqabsadaan waxaan rabnaa in waxa weye maxaa kula la kala faa'iidaysto waxaan la rabaa in aan waxa weye maxaa kula adduun iyo aakhiraba dowladda waxaan rabnaa adduun iyo aakhiraba inay noo ilaaliso oo waxa weeye adduunyadan gaaban ee ayaamaha yar la joogayana aanu waxa weeyaan wanaag iyo maxaa ku dhahday nabadgelyo iyo amni iyo ammaano aan ku noolaano iyo raaxo aakhirana inaan ilaahay subxaana watacaala oo naga raaliya inaanu la kulanno oo jannooyinkiisa ilaahay nagu casumo oo nagu soo dhoweeyo taa ayaanu diyaar u nahay waxa keliya aan ku gaadhi karaa madax wanaagsan iyo culimadayada oo maxaa ku dhahday isku tareen saaran oo wadaagaya talada oo maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday cilmiga wadaagaya oo isu caqli celinaya oo isla talinaya inaanu helo ayaanu doonaynaa sidaa darteed waxaan rabnaa dowladdu waa inay waxa weeye maxaa ku dhahday insha allah bismillahi kariim dowladda jazaakum allahu khayr runtii mawaaqif magaranaysaa wanaagsan ayaad qaadateen waa madaxweynaha iyo maxaa ku ra-iisul wasaaruhu sida ay magaranaysaa guddiga heerka sare ay ugu magacaabeen muxaadarada waxaan leenahay jazaakum allahu khayr shacabka soomaaliyed waa idinka mahad celinaynaa waa idinka mahad celinayaan laakiin waxa ay tahay walaalaha kan waxa weeye maxaa ku dhahda inaad lala hadlo oo loo caddeeyo haddii ay dacwad qabaan ha yimaadeen culimada ha hor yimaadeen haddii ay dacwad iyo dood qabaan culimada ha hor yimaadeen hana la khidaabeen waxa weeye maxaa ku dhahday dood iyo muran iyo qarjajac iyo maxaa ku dhaha anaa keligay baa saxan waa waxa halkaana dhigay keligay baa toosan waxa weeye waxa halkaana dhigay weeye waxaan u sheegayaa walaalaha waxa weeye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma dardaarmin waxa weeye maxaa ku dhahday mawlid nooma dardaarmin quburo la caabudo oo lagu wareego nooma magaranaysa maxaa ku dhaha siirada halka aad ka kelmadda aad ka cadhaysan tihiin ee aad ku dhawaaqayseen ee aad lahaydeen nebigu injirta maxaa ku dhahday iyo maxaa ku dhahday waxyaabahan ku dhasha bini aadankana nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bashar buu ahaa bini aadana ma ahayn malag ma ahayn malag ma ahayn inaga duwan oo nooc kalea ma ahayn nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bashar inagoo kalea buu ahaa oo waxa weeye wax cuna oo wax cabba oo xanuunsada oo gaajooda oo wax allaale waxa inagu dhaca oo dhamme ay ku dhacaan oo la soo derso ayuu ahaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu inagaga duwanaa oo keliya waxyiga ku soo degaya ilaahay u waxyoonayo ee uu ku saxayo waxa weye maxaa ku dhaha awaamirta ilaahay uu ku fulinayo taa ayuu nebigu inagaga duwanaa sala allahu calayh wasalam ilaahayna wuu inoo sheegay sidaa darteed waxaynu doonaynaa walaalayaal waxaan doonaynaa inaan waxa weeye quluwiga waxa weeye maxaa ku dhaha quluwigu meelo badan buu galaa jahaadkuu galaa waxa weeye maxaa ku dhaha jacaylkuu galaa waxa weeye meel walba wuu galaa walaalahan wuxuu ka galay jacaylkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasaa nebigiiba waxay ka dhigaan wax kale sala allahu calayhi wasalam walaalayaal
waxa weeye maxaa kula culimo u joogtaa qiimo badan maanta maalin aynu ka culimo wanaagsannahay ma jirto maanta maalin aynu ka culimo wanaagsannahay ma jirto fadilaahi alxamdu ilaahay baa ku mahadsan waxay tahay culimada wanaagsan iyo maxaa ku dhahdaa hoggaankayaga dowladnimadu inay israacaan inay isla shaqeeyaan inay gacmaha isqabsadaan in geyigan waxa weeye meel looga soo wada jeesto taa ayaan shacabka soomaaliyeed iyo maxaa ku dhahdaa culimada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedna ugu baaqaya cid kasta oo doonaysa afduub cid kasta oo doonaysa inay dadkan waxa weeye maxaa ku dhahdaa qoorsagaaro ay gashato ama ummaddan soomaaliyeed inay iyaga u xidhnaato waa inaan laga yeelin waa inaynaan ka yeelin shacabka soomaaliyeedu walaalahani waxa ay doonayaan in ay waxa weeye ujeeddadu waxa weeye way ismahadiyeen markii la soo dhoweeyey oo madaxda sharafta leh ay soo dhoweeyeen oo ay waxa weeye maxaa ku idhahday heer magaranaysaa ayay walaaluhu ismahadiyeen waxaan leenahay walaalayaal waxa weeye walaalaha ayaa tihiin waxa weeye maxaa ku idhahda waa idin jecel lahay waxa weeye sax iyo qalad waxaad ku taagan tihiinba waa idin jecel lahay waa jirkayagii baa tihiin qayb ka mid ah idinma tuuri karo idinma dhibaatayn karo laakiin qalad idinkama yeelayno inaad qalad nagu hoggaamisaan oo qalad nagu aftuubtaan oo culimadayadii caydaan oo waxa weeye maxaa ku dhahday idinka culimadiina ma doonaysaan in laydin caayo ma rabtaan in laydin caayo soomow raalli kama tihid in adiga lagu caayo ma raalli kama noqonaysid culimadaada adiga in la caayo raalli kama ahaanaysid culimada dadka u daa walaalow culimada dadka u daaya walaalayaalow culimada dadka u daaya aana isugu nimaadno majaal furan oo aynu ka wada doodno oo dhammaan waxa weeye masaa'isha aad adigu waxa weeye maxaa kula wada magaranaysa aad aaminsan tahay iyo masaa'isha culimada aynu la isku khilaafsan yahay waxa weeye waa in laga wada doodo waa in laga fadhiisto xilligii midimidi kutaaga xilligii muranka iyo dooda xilligii afduubka iyo magaranaysa maxaa ku dhahday magaranaysa qabqablanimadu xilligii waxa weeye xoogga waxa weeye xilligaasi waa dhammaaday walaalu waxay ku leeyihiin ugu hanjabayaan dowladda waan ridaynaa haddii ay waxa weeye maxaa ku dhahda muxaadarada baajin waayaan haddii sheekh umar magaalada ka saari waayaan dowladda waan ridaynaa maxay kaga duwan yihiin shabaabka ay sheegayaan bilaa calayk maxay kaga soo iyaguba xoog kuma faanayaan soo iyaguba ma laha haddii kitaabka ilaahay la qaadan waayo oo sida aan rabno loogu xukumi waayo annaguna waxa weeye maxaa ku dhahday nimankan waa way ridoomeen oo waxa weeye diinta ilaahay way ka baxeen sidaa darteed waxa weeye waan la dagaalamayna soomaha waxay leeyihiin haddii walaaluhu waxa weeye suufiyadii ay maanta sidan leeyihiin oo ay leeyihiin annagu dowladdii waxaan rabnaa inaan qasab ku ridno haddii aanay annaga waxaan rabnaa aanay samayn maxay kaga duwan yihiin kuwa ay sheegayaan khawaarijta ay sheegayaan maxay kaga duwan yihin magacuunbay kaga duwan yihin soo maha magacuunbay kaga duwan yihin soo maha walaalayaal waxa weeye arrintu sidaa maaha soomaalidu maanta waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay dad waxa weeye maxaa ku dhaha miir qaba oo isla fadhiista oo waxa weeye maxaa ku dhaha waxa la isku khilaafsan yahay laga wada hadlo taa ayay ummaddu ay u baahan tahay maanta waxa weeye waxay u baahan tahay culimo ogol cid walba inay la fadhiistaan cid walba inay la hadlaan cid walba inay dhegaystaan ayay soomaalidu maanta u baahan tahay laakiin uma baahna wadaad isagu isla quman oo keligii doonaya in uu waxa weeye ummadda afduubo soomaalidu maanta uma baahna walaalayaal waxaan leenahay jasaakum allahu khayr إن شاء الله بإذن الله الكريم قولي يقبنمو ومقرنسا وحن بإذن الله الكريم ويدعيسا محاضراته سيدي علماء أي شيغان شعب كرير مقدشنا وحن لاناي إذنك أيالا إذن كربا إناد كتشو وابتان إناد وحوي محاكولة ذاتر هذا وحوي هروا سفع بعض وقصوا شقيسان جزاكم الله خير سوى ناكسن بعض وقصوا شقيسان سوى ناكسن بعض ومدى الصوماليات آد مقرنسا محاكولة ذا حدا انتي دنباء دولدنا اي تمي مراحل بدن وآدي آد أدق ayaad ka soo gudubteen waxaadna kaga soo gudubteen waayo aragnimadii iyo khibradii aad ka dhaxasheen 30 sano maanta yaan la idin khaldin maanta waxa weeye culimada suufiya waxay rabaan inay mar kale ay afduubaan shalay waxaynu ka diidnay madaxdii hore ee dalka soo hogaaminaysay ayaan ka diidnay inay dalka afduubaan oo ay dawladda qasab ku ridaan maanta niman wadaad sheeganaya oo la qaala Allahu ta'ala wa qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxay ku dhaaranayaan inay dawladda ridayaan billahi alaykum inay dawladda ridayaan ayay ku dhaaranayaan billahi alaykum mataasaan yeelaa mataasay shacabka Soomaaliyeed ay yeelayaan oo dhageysanayaan kalla wallahi lagama yeelayo maxaa shalay aan ku haysanay waxa weeye Sheekh Sharif maxaa ku haysanay Xasan Sheekh maxaa ku haysanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaa ku lagu haystay Fiqi maxaa lagu haystay Axmed Madoobe maxaa lagu haystaa Dani maxaa lagu haystaa waxa weeye magaranaysa maxaa ku raada ina Cabdirashiid Umar Cabdirashiid maxaa ku haysanaa dadka noocaas waxaan ku haysanaa inay doonayaan ummadda Soomaaliyeed godka ay ku jirtay inay ku celiyaan
nin laga yeelayaa ma jiro qof laga yeelayo oo laga ogolaanayaa ma jiro inuu ummadda soomaaliyeed ku hayo dulmi iyo baadil iyo xadgudub iyo maxaa ku dhahday aniga keligay baa jira aniga keligay baa quman aniga keligay ha lay dhegaysto isagoo waxba meesha ku hayn haddana isagoo qaldan qaladkayga ha laygu raaco qofna laga yeeli maayo insha allah bismillahi kariim soomaaliya kaca kor u qaada calanka soomaaliya kaca kofkaa wuu caraabaya soomaaliya kaca karti iyo hofnaan baa ina kaabi doonta soomaaliya guushu way dhowdahay guushii dowladdii way dhaqaaqday maanta waxaan maqlayay waxa weye maxaa ku dhaha waxaa soo socda deni oo berri isu soo dhiibaya insha allah bismillahi kariim allaha soo hadeeyo axmed madow baan sugaynaa allaha soo hadeeyo muusaan sugaynaa allaha soo hadeeyo ummaddani waxaan rabnaa inay ka kacdo oo ay waxa weeye maxaa ku dhahday ay magaranaysaa waddo fiican oo highwaya oo guul ay ku magaranaysaa boqolka sano ee soo socda in ummaddani wixii ka lumay ee magaranaysaa maxaa ku dhahay dhibaatooyin inay ka bogsato baan doonaynaa ma doonayno maalin walba waxa weeye maxaa ku dhahay nin ismahadiyey inuu ummadda isbaara u dhigto maalin walba nin ismahadiyey inuu ummadda isbaara u dhigto ma aqbalayno ma yeelayno bal haddoo firsada walaalayaal waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ha yeelina waa inaad ka jawaabtaan shacabka reer muqdisho waa inay ka jawaabaan waxa weeye maxaa ku dhahday axadda insha allah bismillahi kariim magaaladu waa inay gariirto waa inay waxa weeye maxaa ku dhahay culimada wanaagsan ee rabbaaniyiinta ah waa inay dadkoodii muuqdaan waa inay dadkoodu soo baxaan waa inay muujiyaan cududooda waa inay muujiyaan oo ay waxa weeye ay tusaan walaaluhu hanjabaadda waxay ku hanjabayaan in aanay waxba ka jirin waa inay muujiyaan inta ka horaysana waxaan weydiisanayaa sheekh soomow iyo culimada la midka ah waxaan weydiisanayaa inuu caqligu u soo noqdo inay tanaasul sameeyaan inay haddii ay rabaan dood dalka waa la wada leeyahay aan isku duubnaano sheekh umal waa soomaali sheekh maxaa ku dhahda bashiir salaad waa soomaali sheekh cali wajiis waa soomaali waxa weeye meeshan magaalada muqdisho waa caasimadii dalka soomaalida weeye nina lagama laha nina laguma hanjabi karo nina lagama sheegan karo taa waxa weeye maxaa ku ayaan doonaya leenahay waxa weeye waad ceebaysan tihiin soomow sheekh soomow waad ceebaysan tahay adiga iyo xertaaduba waad ceebaysan tihiin magaranaysa maxaa ku dhaha istighfaar dalba u soo noqda ummadda soomaaliyeed cafis weydiista ummadda soomaaliyeed waxa weeye maxaa ku dhahday waxa weeye magaranaysa maxaa ku dhahday caqliga ha shaqeey maale intaan la gaadhin yowm alaxad la gaadhin عقلكم هالشقيو وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.